halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa ugana dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban fmada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal ayaan dhammaantiinba idin leenahay. saacaddu haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garabey daandure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a roob dabaylo watay oo khasaare isugu jira dhaawac iyo mid hantiyeedba gaarsiiyey dadka magaalada laasqoray. roobkaasi dabaylaha wataa wuxuu saameyn ballaaran u geystay 3 qaybood oo degmada ka mid ah. guryihii ay u badnaayeen dad yar ay deganaayeen iyo guryihii dadka kaleba. sidoo kale waxa uu saameyn u geystay gaadiidkii badda. sidoo kale wuxuu saameyn u geystay wadooyinkii soo gelayay degmada. shir caalami ah oo ku saabsan biyaha ayaa maalintii afraad waxa uu ka soconayaa dalka Canada, kaasoo ka qayb galaya khubaro Soomaali ah. wareysi ayaan idinkaga haynaa. qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa waxa uu talaadadii sheegay in heshiis xabad joojina ee khaza uu ka baajin karo iiraan inay weerarto israa'iil si markaasi ay uga argoosato dilkii hogaamiyey xamaas, taasi oo keentay in xiisadda gobolka ay cerkeys ku shariirto. hadalkiisaasi ayaa waxa uu yimid kadib markii iiraan ay ku gacan sayrtay baaqiyo reer galbeedka ka soo yeeray ee ahaa in ay iska dayso hanjabaadaheeda argoosiga. jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan iyo xulufadeeda ayaa israa'iil ku eedeeyey dilkii ismaaciil haniy ee 31 bishii luulyo maruu booqasho ku tegay magaalada teheraan si uga qayb galo dhaarinta madaxweynaha iiraan masuud pezeshkian oo israa'iil aanay ka hadlin. iiraan ayaa waxay wacad ku martay in ay ka argudan doonto dilkaasi oo ku soo beegmay saacado kadib markii israa'iil ay duqeyn ka geysatay beyruud oo ay ku dishay taliya sare oo ka tirsanaa ururka xisbullah oo ah kooxda awoodda badan ee iiraan ay taageerto ee ka dagaalanta dalkaasi lubnaan. ururada gargaarka ee ka jira waddanka afghanistan ayaa ka digaya in haddii aan la helin taageero caalami ah iyo ka qayb qaadasho joogto ah, waddankaasi uu halis ugu jiro inuu noqdo dhibaato la iloobay. haddii aan la helin dadaallo degdeg ah oo lagu kordhinayo ka qaybgalka diblomaasiyadeed iyo maalgelin joogto ah oo waqti dheer ah afghanistan, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha, waxa ay taasi ku reebi doontaa silic sannadaha soo socda, ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah oo ay sii daayeen talaadadii 10 hay-adood oo kuwa gargaarka caalamiga ah ee ka shaqeeya waddanka afghanistan. neil tonor oo ah agaasimaha golaha qaxootiga ee norway ee afghanistan ayaa fariin muuqaal ah oo uu u soo diray v o a waxa uu ku sheegay in ka qayb qaadashada caalamiga ah ay lama huraan u tahay xalinta mustaqbalka fog ee dhibaatooyinka afghanistan. neil tonor ayaa waxa uu sheegay oo kale in inkastoo hay-adaha gargaarka ay ka qayb qaadanayeen gargaarka bani'aadminimo 3 sano ee lasoo dhaafay markii beesha caalamka si buuxda ay uga tagtay afghanistan, haddana dadaalada hadda jira ma xallin karaan dhibaatooyinka saboolnimada, shaqo la-aanta iyo barakaca. warkiina dhegeystayaal waa dhagaytaas. roob
dabayl wata oo ka da-ay degmada laasqoray ee gobolka sanaag ayaa wuxuu sababay khasaaro isugu jira dhaawac soo gaaray qaar ka mida dadka deegaanka iyo burbur hantiyadda. wariyaha v o eda uga soo warrama boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada laasqoray cabdikariim yuusuf jaamac. walaal degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaa ka dhacay roob dabayl wata oo dabayshu ay aada u xooganayd xilli habeennimaha 7 fiidnimo. roobkaasi dabaylaha wataa wuxuu saameyn ballaaran u geystay 3 qaybood oo degmada ka mid ah. guryihii ay u badnaayeen dad yar ay deganaayeen iyo guryihii dadka kaleba. sidoo kale waxa uu saameyn u geystay gaadiidkii badda oo xilli maaragtay dadku diyaar garoobayeen kalluumaysi ay ahayd iyo kuwa kalluumaysanaya labadaba. sidoo kale wuxuu saameyn u geystay wadooyinkii soo gelayay degmada dhinaca boosaaso iyo dhinaca geeldoora oo isku xirta gobolka intiisa kale, walow saameyntu ay ku xoogan tahay dhinaca geeldoora oo burbur badan u geystay. ma garatay khasaaraha noocaas ayaa ka dhacay degmada. saameynta marka laga yimaado guryaha iyo wadooyinka maxaa khasaare nafeed ay gaarsiiyeen bay sooran ka dhaca? walaalow xilligaas khasaare nafeed muu imaan, dhaawacyo fudud baa jiray, laakiin waxaa jiray wigagii ka horeeyey isbeddelka cimilada oo dabaylo kulul oo hanfi wata ayaa waxay dileen 3 qof oo ayaamo ay u dhexeeyeen min usbuuc ay u dhexaysay. marka dabaylahaasi xaggan sababaa la yidhaahdaa dabaylaha sabada oo kulul dadka marka inta badan reer baadiya ama dadka lugeeya bay saamaysay. marka ilaa iyo 3 qof baa maaragtay ku dhintay intaan arrintaani aanayna soo gaarin. dabadeedna ayada oo arrintaas maaragtay kulaylkaas iyo sabadaas aad u xoogan yahay oo aan hore loo arki jirin ay jirto baa dabayshan iyo roobkaani uu dhacay. laakiin isla xaaladaas roobka dabaylaha wata ee habeenkaa dhacay cid dhimasho ama geysan dhaawac mooyaanine dhaawacyo fudud weliba. waa sidee marka dhalinyarada badda laasqoray aadi jiray ee kalluumaysatada ahaa maxaa soo gaaray? wallaahi xaaladoodu dad dhalinyaro ah oo shaqaysta oo ganacsato ah bay ahaayeen. marka xaaladoodu waa aad bay u maaragtay u adkaatay. qof siximad yarayd ama laashkii ama wixii uu ku shaqaysanayay ay saameyn gaartay. waa maaragtay waa niyad jabsan yihiin. shaqo abuurkoodii ay ka shaqaysanayeenna waa maaragtay culays baa ka soo gaaray. marka xaaladoodu waa iska adag tahay, laakiin insha allah waxay rajeynayaan in dowladda iyo dadka shacabkuba maaragtay ay isla kaashan doono oo si fiican maaragtay in howlahoodii iyo shaqadoodii ay soo ceshadaan in qayb laga noqon doono insha allah. hadda dadku maxay ku sugan yihiin marka dadka uu saameynta uu ku yeeshay roobabkaasi oo guryahoodii uu baabi'iyey? wallaahi dadka horta saameyn adag, xaalad adag bay ku sugan yihiin. 3 arrimood oo horta daruuri ana waa u baahan yihiin. dadkaas waxay u baahan yihiin cunto, waayo waa ka qoyday raashinkii, waa ka qoyay muxuu ahaayey hoy gogashii waa ka qoyday. dad kale bay dul saaran yihiin iyo waxyaalo dee maalin ama 3 maalin lagu noolaado oo ganacsatada iyo dadka degmadu aan la isugu ururiyey. marka dadkaasi marka koowaad waxay u baahan yihiin cunto, waxay u baahan yihiin shelter oo hoy bay u baahan yihiin maadaama guryahoodii ay dumeen. sidoo kale waxay u baahan yihiin biyo nadiifa inay helaanin oo maaragtay ceelkii magaalada oo waxaa ka jabay maaragtay solartii baa dabayshu ay jabisay oo magaalada wada gaarsiin jiray dadka. hadda marka waxaa loogu dhaamiyaa maaragtay gooyada iyo awal magaaladu biyogelin bay ahayd oo solarkaasaa biyaha qaadi jirtay, solartii iyo bamkii iyo wixiiba maaragtay dabayshaa wax gaarsiisay. marka solartiina way tuurtay. mar haddii solarka ay tuurtana bamkii ma shaqaynayo, biyihiina haamihii ma gaarsiinayo. marka dadkaasi biyo nadiif ay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, hoy bay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin caawimaad bini aadantinimo oo dhammaystiran bay u baahan yihiin. tirada qoysaska uu saameynta uu ku yeeshay dabaylahaasi guud ahaan tiradooda waa imisa? wuxuu ku yeeshay qoys ahaan waa 103 qoys weeye. 8 waxay isugu jiraan dad danyara oo deganaa maaragtay guryaha sandaqada ama carishaanta loo yaqaano iyo dad guryo dhagaxa deganaa oo caadiya guryaha inta badan dadku ay degan yihiin. marka guryaha burburay oo dhulka galay waa 53 guri.
kuwa ay ka qaaday jiingadu ay ka qaadayna waa 30, kuwa ay maaragtay carshaanta ah iyo kuwa kale iyana ay burburistayna waa inta kale. ilaa imika dadkaasi maxaa qayladhaan oo gaarsiiseen dhanka dawladda iyo waliba hay'adaha si dadkaasi wax loogu qabto? weli dhinaca hay'adaha iyo dawladda dhexe waxba nagama soo gaarin, laakiin anagu ka heer degmo isku tashi heer degmo ah wixii tabar ahaa oo de magaalada ahaa dadkaan ugu qayladhaameynay iyo wixii tabar ahaa ee maaragtay ka degmo ahaan anagu aanu gaarsiin karnay iyo wixii dadka deegaanka aan uga qayladhaami karnay ee dhexdooda aan uga shaqayn karnay uga ururin karnay waa looga ururiyay, waana inta ay hadda weli ay ku nool yihiin. laakiin dadaalo badan baa dhinaca dawladda ka socda oo wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha xiriir aan la sameynay dadaalo badan baa socda. insha Allah natiijaanu ka sugeynaa in maaragtay maalmaha soo socda ayna soo gaarsiiyaan. kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Laasqoray Cabdikariim Yuusuf Jaamac, waxaana uu waramayay wariyaheena nooga soo warrama magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. ilxaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan koongareeska maraykanka oo guulaystay ayaad dhegeystayaal dhowaan maqli doontaan. hase yeeshee shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha biyaha ayaa maalintii afraad waxa ay ka soconayaan ama uu ka socdaa magaalada Toronto ee dalkaasi Canada, kaasi oo ay ka qaybgalayaan dalal kala duwan. shirkaasi ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo maalinta Khamiista. haddaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu wareystay Cabdullaahi Xasan oo ah khabiir arrimaha biyaha ah, xubinka ururka caalamiga ee biyaha International Water Association. ugu horreyna waxa uu weydiiyey shirka iyo waxa uu ku saabsanaa. shirka caalamiga ee biyaha ee World Water Congress oo soo qaban qaabay ururka caalamiga ee biyaha waa shir caalami ah oo diiradda lagu saaro arrimaha la xiriira maareynta kheyraadka biyaha iyo xal u helidda caqabadaha biyaha ee heer caalami. shirka sanadkan oo ka dhacaya magaalada Toronto ee dalka Canada wuxuu ujeedkiisu yahay sidii loo qaabeyn lahaa biyaha mustaqbalka ee looguna fikiri lahaa generationka soo socda. wuxuu ujeedkiisu yahay in la mideeyo oo laisku keeno dhammaan aqoon-yahanada, siyaasiyiinta, farsamayaqaanada iyo dhammaan cidda ka shaqeysa arrimaha biyaha ee ka kala socda daafaha dunida si ay uga wada hadlaan xalalka waara ee lagu maareyn karo biyaha iyadoo la tixgelinayo arrimaha waaweyn ee adduunka ka socda sida isbeddelka cimilada iyo baahida loo qabo in la kordhiyo helidda biyo nadiif ah. waa tahay Cabdullaahi, yaa ka soo qayb galay shirka, maxayse tahay waxyaabaha ay muhiimadda u arkayaan dalalka ka soo qayb galay? shirkan waxaa ka soo qayb galay dhammaan xubno ka socda dowladaha caalamka, ururo caalami ah, macaahidda cilmi baarista, jaamacado, shirkadaha waaweyn iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo khubarada madax bannaan oo ka kala yimid adduunka dacladiisa. ka qaybgalayaashu waxay muhiimad gaar ah siinayaan sidii xal waara loogu heli lahaa maareynta biyaha iyagoo ay ka wada hadlayaan iyagoo laga doodayo xalka waara ee lagu maareyn karo biyaha caalamiga ay wadaagaan dowladaha iyo biyaha kaleba. intuu shirka socdo waxaa la qabanayaa 60 workshop ama aqoon isweydaarsi. waxaa la qabanayaa shirar gaargaar ah ama side meetings oo in ka badan 100 technical sessions ah. waxaa kaloo la qabanayaa shirkan intuu socdo 5 forum oo waaweyn oo ay ka mid tahay forumka loogu doodayo arrimaha biyaha dhulka hoostiisa ku jira oo ground waterka loo yaqaano, forum kale u dhexeeya warshadaha ama shirkadaha waaweyn ama utilitieska biyaha oo ka shaqeeya arrimaha biyaha caalamka oo dhan. ugu dambeyntii, maadaama sidaan ognahay Soomaaliya ay biyo yari ka jirto ama abaaro ay ka dhacaan, maxay ka faa'iidi kartaa ama ay ka baran kartaa shirkan oo kale? Soomaaliya waxay ka baran kartaa 10 wadamada ku guuleystay maareynta kheyraadka biyaha oo runtii aad u maareeyay arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha. waxaa jira wadamo badan oo naga roob badan, naga biyo badan, haddana awood u yeeshay inay maareeyaan. inkastoo anaga caqabadaheena dhanka biyaha aysan hal dhinac ahayn oo dhinacyo badan in laga fiiriyo ay ugu horeyso
institutionada ka shaqeeya ee dawliga ah awoodda ay u leeyihiin maareynta dhaqaalaha dalka uu leeyahay inuu hirgeliyo infrastructurekii ama kaabayaashii dhaqaale ee loo baahnaa ee lagu maareyn kara biyaha. laakiin shirkani waxyaabaha aadka loogu soo bandhigay waxaa ka mid ah farsamo ama modern technologies oo runtii ka qayb qaadan kara horumarka iyo maareynta kheyraadka biyaha. waxaan rajo badan ka qabaa in shirkan wixii ka soo baxa iyo shirarka kale oo la midka ahba inaan cashar badan aan ka baran doono oo aan anaguna aan ku dayan doono wadamada ku guuleystay inay gaaraan inay biyuhu aysan dhibaato ku hayno laakiin ay ka faa'iidaystaan. fursad badan baa jirta dalkeena markaa fiirisid Soomaaliya berigii hore ma jirin waxaa aad u yaraa runtii farsamo yaqaanada dhanka biyaha ama dadka biyaha soo bartay ama qubrada biyaha. waxaa yaraa jaamacado bixiya, waxaa aad u yar jaamacadaha bixiya arrimaha biyaha, cilmiga biyaha iyo maareyntiisa iyo wixii la xiriira. laakiin waxaan rajeynayaa in sanadaha soo socda anagana aan qayb ka noqon doono shaping our water future in Somalia insha Allah. waxaan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay 35 arday oo master dhameystay jaamacadda ummadda oo runtii waqti badan iyo juhdi ay ku bixisay wasaaradda kheyraadka biyaha inay hadda bishan September ay ka qalin jebin doonaan iyagoo bartay Masters of Integrated Water Resource Management. oo runtii waxyaabaha ciwaanada aad ugu weyn oo loogu doodaa shirkan ay qayb ka ah sidii biyaha loo maareyn lahaa si wada jir ah. hadday noqon lahayd biyaha oo national boundaries ku jiro ama kuwa oo transboundary loo yaqaanaba. marka waxaan rajeynayaa in fursadahaas dhalinyaradaas tirada badan leh soo baxday kuwa soo bixin doonaba inay ka qayb qaadan doonaan maareynta kheyraadka biyaha dalkeena. rajeynayana inay yaraadaan fatahaadaha iyo abaaraha nagu soo noqda. biyuhu anagu aad bay noogu yaryihiin runtii waana ceeb inay nagu fatahaan sanad kasta. waana ceeb haddana sanadkii gudihiisana abaare iyo fatahaad baan u dhexeyno. waxaan rajeynayaa in mustaqbalka biyaha Soomaaliya ay noqon doonaan kuwa si fiican loo maareeyay, institutionada ka shaqeeyana ay awood u yeelan doonaan. dhammaan dadka daneeya biyahana ay runtii ka qayb qaadan doonaan in biyahaasi tayo iyo tiraba in la dhowro. maasantahay dhegeystayaal. kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xasan oo ah khabiir arrimaha biyaha xubinna ka ah ururka caalamiga ee biyaha International Water Association, waxaana uu magaalada Toronto ugu warramayay wariyaheena VOA Xuseen Nuur Xaaji. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. ilhaan cumar oo ah xildhibaan ka tirsan koongareeska Mareykanka ayaa ku guuleysatay doorasho ay ku daafacanaysay kursiga degmada laga soo doorto ee Minneapolis, taasoo ahayd isreebreeb xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay ka badisay musharaxii la tartamayay oo la yidhaahdo Don Samuels. Nuur Xasan Nuur ayaa arrintaasi waxa uu ka wareystay Maxamuud Mascade oo ku sugan goobta doorashada halkaasina noogu soo warrama. waa bilaabaynaa marka. maxamuud bal noo faahfaahi warka ugu dambeeyay doorashadii xalay dhacday goor dhaw soo gabagabowday. aad baad u mahadsan tahay Nuur. waxaan hadda taaganahay meesha ay ku dabaaldegayaan taageerayaasha Ilhaan Cumar, waxaanay u dabaaldegayaan guusheeda caawa. waxay Ilhaan ku guuleysatay inay ka adkaato musharaxii kale ee la tartamayay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ahaa oo lagu magacaabayay Daniel Samuel. waxa ay kaga adkaatay 60% codadkii la tiriyay, 100% aan idhaahdee 56. waxaana halkan isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan oo u dabaaldegaya guusha Ilhaan Cumar. waxay ahayd run ahaantii sida Ilhaan ay sheegtay tartan aad u adag oo aad loo weeraray, laakiin weerarkaa lagu soo qaaday iyo sida lagaga adkaadayba iyo sida loola dagaalamaba waxa ay sheegtay Ilhaan in ay adkaatay oo guul arrintaasi ay ka keentay. doorashadana ahayd tii ugu adkeed ay la kulanto, laakiin ugu dambeynta ay guulaysatay. waxaa haddan dhinaca iga jooga Cali Ciise oo loo yaqaano Cali Ganay, kana tirsan xafiiska Ilhaan Cumar. isaga ayaan weydiinayaa bal waxa ay guushan kaga dhigan tahay sidii warkaan. Cali, marka hore bal iga waran guushani waxay kaga dhigan tahay.
guusha ilaaha bixiya alxamdulilahi rabbilcaalamiin walaahi guushan waxay nooga dhigan tahay in cunsuriyiintii iyo dadka ummadda necdaa oo dhan suuka ay tageen laakiin aan muujinay karti iyo dadaal dadka soomaaliyeedna ayagoo midaysan ay maanta soo baxeen oo codeeyeen taasna waxay jawaab u tahay qof kasta oo nagu eedarooda inaan codkeena kaga aarsan karno marka maxaa adkeeyay doorashada sanadkan doorashada waxaa adkeeyay markii cunsuriyiintii iyo kuwo kaloo qayb ka mid cunsuriyiinta oo ayagana dimuqraadi nalaha ay isbahaysteen iskuna bahaysteen in ilhaan kursigeeda la maaragtay xoog lagu qaato taasina waxaa ka dhiidiyey dadka soo galootiga soomaalidu badan yihiin